barakaad ku soo dhawaada casharkeena maanta oo aan ku baran doono viwakilishi awali. Haddii aad daawatay casharadii hore waxaan soo baranay viwakilishi. Viwakilishi waa un magacu yaalo. Awali markaan dhahnana waa magacu yaalada ereyada ay qaataan. Inta aanan raacinin ficilka. Tusaale af Soomaali ahaan magacu yaalada waxaa ka mid ah aniga, adiga, asaga, iyada, anaga, idinka. Marka dhammaan waxyaalahaasi ayaan ku magacawnaa magacu yaal waayo waxay qaataan booska magaca. Waxaan kaloo raacinaa sidoo kale erey kale. Tusaale markaan leeyahay aniga waxaan ahay, marka waxaan ayay qaadataa aniga. Adiga waxaad marka waxaad ayadana waxaan leenahay waa viwakilishi awali. Marka ereyadan waxaan iyo waxaad ayaan waxaan ku magacawnaa viwakilishi awali. Marka viwakilishi awali waxaan rajaynayaa inaad fahanteen ereyada ay magacu yaalada qaataan. Magacu yaalka koowaad oo aan baran doono waa mimi aniga. Ka labaad wewe adiga. Kan saddexaad yeye asaga mise iyada. Marka labadaba waan u isticmaali karnaa yeye. Kan afaraad sisi anaga sisi. Kan shanaad nyinyi idinka. Kan lixaad wao waa ayaga. Marka lixdan ayaa ah magacu yaalada. Marka mid walba wuxuu qaadanayaa erey sax ah oo aan haddii aan isticmaalin ereygaasi ay dhinaca grammarka weedha ay qalad tahay. Marka mimi waxay qaadanaysaa mimi ayay qaadanaysaa. Waxayna gashay booski waxa aniga waxa. Wewe ayay qaadanaysaa uda waxay u taagan tahay waxaad. Yeye waxay qaadanaysaa yeye a. Sisi waxay qaadanaysaa sisi ayay qaadanaysaa. Nyinyi waxay qaadanaysaa ayay qaadanaysaa. Wao ayay qaadanaysaa. Bal tusaale aan ka bixino si aan u fahno. Mimi ninataka chakula. Mimi waa aniga, taka waa rabid, chakula waa cunto. Marka waxaan leenahay mimi ninataka chakula. Aniga waxaan rabaa cunto. Wewe unataka pesa. Adiga waxaad rabtaa lacag. Yeye anataka maji. Ayada waxay rabtaa biyo. Marka maji waa biyo. Sisi tunataka kazi. Anaga waxaan rabnaa shaqo. Nyinyi mnataka kitabu. Idinka waxaad rabtiin book. Wao wanataka kalamu. Ayaga waxay rabaan qalin. Marka lama dhihi karo tusaale haddii aan dhahno mimi anataka lama dhihi karo. Waxay qaadataa yeye. Marka mimi anataka badana Soomaalida way qaldaan. Mimi anataka chakula ma yahdin ma dhihi kartid. Grammar ahaan mise naxwo ahaan waa khalad. Marka insha Allah waxaan rajaynayaa inaad fahantay casharka. Waxaan idin ogeysinayaa in koorsiga Swahiliga qaybtiisa bilowga ah ka kooban 50 cashar in uu diyaar yahay website-ka uu ku jiro. Haddii aad u baahan tahay barashada luqadda Swahiliga casharadaasi waa casharo aad hal mar iibsanaysid noloshaada oo dhan ay ku furnaanayaan. Ma ahan casharo ka dhici doono oo 6 bilood kadib mise 5 bilood kadib mise sanad kadib laga xirin doono. Waa kuwa iska furnaanayo noloshaada oo dhan oo aad isticmaali kartid. Waa koorsiga wuxuu ku jiraa qiimo dhimis ayuu ku jiraa oo ballaaran. Waxaan ugu talagalnay 100 arday ee ugu horeysa kaliya. Marka haddii aad rabtid barashada luqadda Swahiliga waxaad joogtaa goobtii ugu habooneed iyo waxaan ku diyaarinay koorsigii ugu haboonaa oo aad ku baran lahayd luqadda Swahiliga. Soo dhawaad ayaan ku leeyahay si aad inoo la soo xiriirtid booqo profile-ka
kadib ku dhufo linkiga halkaas saaran wuxuu ku geyn doonaa WhatsApp-ka halkaas ayaad inagula soo xiriiri kartaa soo dhawaada dhammaantiina waad mahadsantihiin